qaar ka mid ah qurba joogta u dhalatay gobolka Sanaag ee ku dhaqan wadamada Holland iyo Ingiriiska ayaa deeq ariya u qaybiyay qaar ka mid ah dadkii ay abaaruhu seejiyeen xoolahoodii deeqdan xoolaha oo ay tiradoodu dhannayd 500 oo neef oo ariya ayaa loo qaybiyay in ka badan 50 qoys oo ku kala dhaqan deegaanada ceel helay Geerisa madaxdadley Jiri iyo laanta Muruhdale oo ka kala tirsan degmooyinka Lughaya iyo Saylac mas'uuliyiinta ururka Ramad oo wakiil ka ahaa muxsiniinta ku soo yaboohay hantidani ayaa iyagu ka hadlay deeqdani iyo halkii ay ka timiday bismillaahir rahmaanir ururka Ramada waxaan deeq ka helay walaalaha qurba joogta ee Ingiriiska ku nool iyo Holland ku nool ayaan ka helay deeqdaasi waxa walaalahaas waxay ugu soo deeqeen walaalahooga ku nool degmada Saylac iyo muxuuha iyo Lughaya sida daraadeed xoolaha maxay deeqdaasi waxa weyn waa 500 oo xoolo ah oo nool in loo qaybiyo walaalaha amba reeraha ay xoolihii ka dhamaadeen ama nin 10 haysta amba 5 haysta amba nin waxba haysan in loo qaybiyo abayaasha ka shaqeynayeen kulli waa kuwan la jooga xoolihiina waa kuwan maanta bisho ay shan tahayna xoolaha waa soo gudoonay waxaan ogeysiinaynaa walaalihii maalgeliyay amba ku soo tabarucay walaalahoodina xoolaha walaalahooda ay gaarsiiyaan waa ka gudoonay abayaasha waxaan joogana waxaan leenahay naga gudooma xoolaha waan leenahay waxaana kulli loo qaybinaya reeraha tabaalaysan kuwa bilaa dameerka aha iyo kuwa bilaa ariga aha ayaa loo qaybinaya sida daraadeed waxaan rajaynaynaa insha Allah taala in xoolaha ilaahayna u barakeeyo ayna noqdaan kuwa khayr qaba oo ilaahay u tarmiya ilaahay baana qaniya ilaahay baana ka bixiya dadka dhibaatada waxaan kale oo mahadnaq u jeedinaynaa ururka Ramad deeqdan la soo gaarsiiyay laga soo gaarsiiyay walaalahayna kale qurba joogta uga wakiilka annana la soo gaarsiiyay waxa weeyay annagu waxaan nahay reer Geerisaad waxaan la soo gaaray oo ina soo gaarsiiyeen 100 ariya 100kii ariya waan ka gudoonay waan iibsanay waan haynaa arigaas oo iskugu jira kuwii bila dameeraha dameeral u iibinay bila ariga hana ari baan uga dhignay waxa weey ilaa baa mahadle waana ka gudoonay waxaan leenahay walaalaha iyo qurba joogta iyo ururka Ramadba dhammaan waxaan leenahay iyo walaalaha kale ee Jabuuti iyo jooga qurba jooga waxaan leenahay marteeqdaana loo soo beeriyo dadkii uu cayroobay dadkii muxuu ahaa reer miyiga uu cayroobay cud lama haysto ninka 10 neef lagu badan maanta wadanka waxa degan dadkii wuxuu u baahan yahay in lagu soo deeqo xoolo nool oo loo iibiyo si beeshu ay dib ugu degto oo dadkii jicsan u helo oo loo dego wadanka dib loogu dego waxa weeyaan deeqda maanta deeqa wanaagsan oo ka sharaf badan oo ka farxad badan deeqa mari ma aragnimay soo mariyo wali bismillaahir rahmaanir rahiim imaka waxaan joognaa tuulada Jiri baan joognaa waxaan sidnaa 70 neef oo ugu tala galay deegaanka Jiri 70 ka neef waxa ka faa'iideysanaya 7 qoys oo qoyskiiba leeyahay 10 neef waxa soo diray xoolaha qurba jooga Ingiriiska iyo Holland ayaa u soo diray dadka deegaanka waan gudoonsinay waxaan ku wareejinaynaa dadkii deegaanka geesta kale waxa deeqdani si kal iyo laaba uga mahadnaqay dadkii ka faa'iideystay fursadani waxayna intaasi raaciyeen in ay kuwa kale ee walaalahooda ee waxaystaay u soo gurmadaan dadkii ku caydhoobay abaarihii ka dhacay deegaanadaasi xeebta anigu Ahmed Migil Altare xildhibaan ah gobol degmada Saylac hay'ad tuluna ka tuulada dadkan waxa la soo xil saartaa anu bal inaan 7 qof qoys ugu danta yar ugu hooseeya inaan ka soo xulo dadka maanta way jiraan kuwa kale oo kuwan la mid yihiin waa daf way joogaan wayna jiraan laakiin talada Ilaahay baa iska leeyahay nin walba wuxuu Ilaahay u qoro ayuu qaadaa ma dhaafo wuxuu Ilaahay u qoro ma dhaafo waya marka 7dani waa 7da ugu dan yar ugu liidanaysa bay ahayd xagga xoolaha wax tukaan li kuma jiro wax bakhaar li kuma jiro mid boqol li kuma jiro mid iibiri ah kuma jiro waa mid ay baday weey laakiin way ku badan yihiin dad caynkaas
وبدين أدب بدين وحنا واحد بالشلة ده كان ما لكن هدي لك يعني واحد لوجرتي هذنا أنتي يا لوجرتي السنة يا إلا سكر ديو وحي كرانة لو صدري كرو لو صدروا بالشلة نوادر كيسان وأنا ودين كرتان أكتر مركا ده أنا هذا الكستان وقد عيا أنا قبيل مغرين تكون لقار تكون المغرين سي إلهي وجود عدالة وجود عدالة إلهي بس ما كره لكن أنه سيد وجود أيام السمنة مركا واحد باني واحد لو كتاجن متر بالشدنا وبهنتاي وين أبو هذه سكون وين ونيس وين الناس أنا يكون الصبح هي بالجوك الصبح سنة ويود عينيان لكن وحيلين على النص البيري تضبك على هذا اللي صدره تضبك على اللي صدره دتكو إسرائيلها وإسرائيل لكن تضبكوا اسم هذه اللي السوق هذا بالشد إنه دقيقة إن هذه اللي السوق هذا دبت هذا دبته كل شرطة مركب واحد السنة إنه بقول واحد السنة إنه إن السوق كرديو إن لو سوق كرديو إن شاء الله بخير قبلنا إن لا يمشي ذا لوك بدلو بس واحد اللي بانهاي والله سيدي للنص وبيجاري أبدأ مهنقينا ونبهنين السلام عليكم. إنسان قيس بالك إنسان نف. طبعا نف بالسي قيس أو تضبط النف مركان وصل تضبط النف. hadday ka damqadeen walaalahayo oo inagu soo xasuusteen taakulayn waan ka gudoonay wixii ay noo keeneen maanta 7 qoys oo 10 ceesaamood ay noo keeneen 7 qoys iyo in ka sii badanna way aad bay u dayacan tahay waxaan doonaynaa kuwaas oo walaalaha iyo ana sida ay kuwa inta yada kaleba ay wax u soo siiyeen iyagana inay kuwaana u soo siiyaan ilaahayna u soo dhiibo rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ilaahay baa mahadle إلهي بقى محل إله نمعدا كيني يا أبارتي هوارد هاي تتك كسوفتي نمعدا كيني بقى محل إلهي بقى محل واحد مستيقوا ولا له هذا أبارت أي نافسة الدنيا ده كقاطي وصراحة مستيق كيني ما توحى أي كدريريان برواقدا تتك وحى يستعي كنجلا من نقدان هو أسوأ تمنيه وكيني بقى يقول محل إلهي كإجازة السيان لنا إلهي واطا واحتركا أي كينين كل ما الله ويجانا هو قدكو إفكرها كل شيء آخرنا جل الله كرسي تاسان لنا هاي وحي كينين أروح رحمة أنا أوجوغنا تولد لاكت مرحلة وحي أكينين بقولي يا فرتن نيف وأولي قنطة أفر إيا تبقويس أي ومد إيا تبان نيف وأريا أي قيبيين يا كينين ويكون معتين وكقدوني هتان ضياشي نهاي هتان ديجان كي نهاي هتان هاي ضياشي عقلتي ديجان هتان هاي وحجرتي هتان هاي وكقدوني أمال والحنين أنت ما تنلا جوكته يعيت النجم مكان واحد صادرتي ولا له تقص حصتي أنت أنا واحد لا هاي إلهي هاي نجا كلا ضيشته إلهي ما هذا هاي نجا سيو إلهي واحد كسر بحسن بركة النبي قال هاي نجش وصو ما تواد بحسن ما يرددك وابديه ما لقى ما كانوا انت كلنا ان شاء الله waxaan nigu tamanayna inaad ilaahay idankiisa inaad inta in leeg hadda soo dirtiin oo aad soo xasuusatiin oo aad xoogiina iyo tacabkiina iyo wixii labaad ka soo dirtiin baan hadda nigu mahadnaqaynaa oo nid soo diraynaa ta kale ee labaad dadku wuxuu joogay waa xagaa waxa illa Cabdulqaadir illa madaxdilay halka iyo maxaan ku dhahay laagta mar hodan imka taaganahay intaabay soo mareeno intaasay in walba wixii ay ugu soo tala galeen iyo ku soo bixiyeen imka saacadan aan taaganahay ee casar dabadiyeen anaga inaan taagan yihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh maxamed cawaal daahir xariira TV magaalada Saylac.